سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلشدة halkan isugu timi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. oo shirka kan soo ajiibtay raggii iga horeeyay baa warkii oo dhan sheegay iyo waxa shirkani ku saabsan yahay. horta waa uga mahad celinaynaa ka soo qaybgalayaasha shirkan oo arinta Puntland ama arinta Soomaaliyeed ba guud ahaan lagaga hadlayo. arinta Soomaalida baa ugu horeysay waxaynu ku jiraa waqti doorasho. doorashaduna sida u socoto waa si boob ah oo aan u fiicnayn. waxa loo baahan yahay in doorashada si wanaagsan loo qabto. qolada dawladda haysataana inay laga si fiican ka tagtaa loo baahan yahay. waa ognahay wixii aqalka sare laga sameeyay. aqalka hoosena durbaba waa aragnaa sida uu socdaana waxaan leenahay dadka cadaaladda deeqda dawladnimada fiican baa ummadda Soomaaliyeed deeqda taasi Soomaali baan guud ahaan u leenahay. cid kasta iyo gobol kasta ay tahayba dadka hal la daayo doorashada xorriyad ha lagu galo. arinta Puntland 30 sanadood bay hadeer inta tigaar dawlad u ahayd. wax badan waa soo qabatay oo waa u soo qabsoomeen. wax badanina waa ka xumaadeen. waana nasiib darro. maanta Puntland taariikh horena waa lahayd oo taariikhda Soomaalida baal dahaba bay kaga jirtay xagga maartay administrationka iyo maamulka sida loo sameeyo. waxaan xasuustaa hees Allah u naxariistay Saada Cali markuu heesiisay oo Boosaaso la yiraahdo. anuu buugan qorayna waaba ku qoranta. waxay tiri dadku badow hoon garan businessku uu ka socon jiray. baayac mushtariga iyo businessku uu ka socon jiray dadku badow hoon garan. Soomaalida kale oo badowba baa dhulkaasi xadaarad lahaa, ganacsi lahaa, adduunyada la xidhnaa, saldanado iyo boqortooyooyin ka talinayay. maanta meeshii qarnigii 17aad boqortooyooyinka lahayd dunida la macaamilaysay maxaa la xeerarka adduunka iyo caalamka la socotay maanta inay sida maanta ay tahay waa nasiib darro. dadka joogayna nasiib darro ku tahay. in legacy awoowayaashu taariikhdii awoowayaashu wiilal yar yar oo ay dhaleen ay ku cayaaraan waxay doonaan ku sameeyaan. war dadka sida u wadaan waa khalad. war maamulkan sida uga shaqeynaysan waa khalad. war nimanka madaxda ah waa badweyn baad ku jirtaan oo waad salcaansantiin oo war ma haysan kuwa idin yimaadana been bay idin sheegaan. annaga runta idin sheegayna jar baa ka tuurteen dadkii waa dhibteen. waxa laaliyo wixii ka xumaadana Ilaahay waa idin kula xisaabtamaya. bil khusuusan waxaan la hadlayaa ninka la yiraahdo Saciid Cabdullaahi Dani. war Ilaahay ka cabso. war Ilaahay ka baq. war Ilaahay ka xishood. war ummadan war waad dhimanaysa. wallaahi baanad noolaanayn. waxaad kiish ku gurayso haday jirto anigu kulama xisaabinay. ma cunaysid mana calfanaysid. awlaadaada ha uga tagin ayaan daro. taariikhdaada iyo cilib dambeedkaaga ha xumayn. dadka lagu dhiibay kama naas wad. hadaad wadi kari weydaan iskaga tag. adeerow adduunyadu waa wax gaaban. nimanka durbaanada ku tumayo ku heesaa been bay ku sheegayaan. dadka aad xukunto Soomaalida kamida qaybta lagu dhiibay dhaqanka Soomaaliyeed ku xukun. waxa Soomaaliya rabto ku xukun. waa dad taariikh leh. taariikhda ha ku cayaarin. taariikhdii awoowayaashood habiin adna ifka ha kaga tagin cilib dambeed xumo aakhirana cadaabka Rabbi ha gelin. tuug ha noqon. dadka wixiisa ha cunin. ha ku takrifalin. saasaanu leenahay oo u sheegayna dadka ha isku dirin. maanta Puntland ma ahayn lagu gaajoodo. maanta Puntland ma ahayn inay sharci la'aan ahaato. maanta Puntland ma ahayn inay maxkamad la'aato. maanta Puntland ma ahayn inay askar la'aato. maanta Puntland ma ahayn inay election la'aato. maanta Puntland ma ahayn inaad adiga iyo asxaabtaadu tiraadaan anaga u yeedhinayno u qorayn. marka dadka meesha degan Soomaaliyeed qabiilka u badan reer badan Soomaali badan baa meesha taala. laakiin majority bay leeyihiin. dadku majority bay leeyihiin. war taariikhdiinii waa xumayseen.
inamadiinii baa xumeeyey waa ku aamusteen waxa la yiri gashaanti aamuska lagu meheriyaa haddaad ka siqdiidi weydaan nin walba guriga madaxu yaalo weey guriga ugu imanaysa warinamadan aynu dhalay oo aynu inagu shalaynayna maamula ilaa dad wax ma wada maamuli kareen marba aynu mid oranayno wax maamul ee tuugada noqonaya war dadkii diidi lahaayoo ka diidi lahaa gacanta ka qaban lahaa idinka weey iyadoo cunfi iyo dagaal iyo dhibaato ahayn maya adeer laakiin haddaynu u aamusno odayadeenu ku aamusaan ganacsatadeenu ku aamusto maanta mar baa jirtay boosaaso Soomaaliya oo dhan dekadu ahayd haddana waxaynu ognahay waxba ka soo degin inay dekadii ciidi dhaamisay baynu ognahay wixii dawladdii markay dhacaysay intii yareed ee Talyaanigu dhisay inay waxba lagu darin maanta dadku waa tartamaya wuxuu loo baahan yahay Berbera iyo Muqdisho iyo Kismaayo intaba waxa ka soo degaya containers bay maraya waxa nasiib darraa in maartay ganacsatada boosaasood container Berbera wax kala soo degto waxaana waa maamul xumo waxa gaarsiiyay waxaana waa dadku waxay oranayaan 5 sano iska dhameys muxuu dhameystaa haduu dhalaaxda qaaday kuwii hore ahayd oo daalaha oo qabay oo waxani waa wax soo kareeyay wiilkanina waaba arkay dadkan aan hadlan iskaga durduri buu yiri waroy alla ka baq waroy sida loo buuraan maayo waroy sida la ahaan maayo warbirita xisaab baad dambaysa wallahi rida riirdida adaa u qoolan lagu weydiinaya dad ba iska daa qofka baahiyo disho ama gaajoodo calooshiisa ama bukaan dareemo wallahi adaa u qoolan waayo adaa soo dood dibad gurigiina iska joogtid marka election ka dadka loo facilitate gareeyay ragii hore sheegay dadkaas aale qabaa'ilkaas aale kuwa doonayaan aan waxan ba oran la war doonina waa wax xune waxba isku dilinin oo isku dhibina kuwan dawladda sare ee la leeyahay hadda loo qaylinay dawladda federaalkaana waxaanu leenahay dadka idinka nimanka u bahdelay dad badan oo bari hore shaqo ka qaban lahaa baa joogay hadda sabooraysan oo taageeraysan laakiin iyaga un baad iskaga daba xidhateen waxaad u arkaa inaad isma dhaantiye dhasheetihiin marka Soomaalida ha laga daayo musuqa ha laga daayo boos jacaylka ha la iska daayo maxaa la yiraahdaa musuqmaasuqa iyo tuugada iyo beenta ha la iska daayo isku durdurinta iyo maartay isriixa ha la iska daayo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.